horeysiinaya xildhibaanada karaamada iyo sharafta ay ku dheehan tahay codka ay siiyay iguna wareejiyay maanta codkii guud ee maxay shacabka degmada lagu hayo oo dhan runtii mas'uuliyadda marka hore way qaybsaneed ninba in baa saarneyd laakiin maanta xaqayga baashi loo soo ceeriyay aniga iyo maxamed bare ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu nagu asturo kulay laba qof iyo qof midna wax ma qaban doono laakiin haddii golaha iyaga sagaalka wada shaqeyno oo maxaa ku dhacday aanu meel uga soo wada jeesano ayuun baan wax qabaynaa insha Allah aad u salaamaya xildhibaanada sharafta leh iga codeeyay kulay meel dheer ma geeyne saaxiibka in badan soo wada shaqeynay bay codeeyeen in midnimada la muujiyo wanaaga la muujiyo waxaan yar jeebkan ku wada sidanana meel la iska dhigo Cabdilaahi oo maayirka ah iyo Axmed baa xildhibaanadii hore ka jooga guul weyn anigu intaan ka shaqeynayay degmadan ama gobolkan Cabdilaahi wuxuu ahaa maayirkii koowaad ee ummadan mideeya ee ka saara qabiil ee cid walba harkiisa ugu taga ee halka maanta la taagan yahay soo gaarsiiyay